dhaqdhaqaaqyo horseedi kara isbeddel degdega oo ku yimaada siyaasadda Soomaalida ayaa socda. waxaa jira dadaal xoogan oo ku isiran is-abaabul bulsheed oo maara loogu dayayo dayaca darayada dawladliidu keentay ee gashay gugii soddonaad. Soomaal dhankaad eegtoba laysma dhaamin muddadaasi dheer ee bulshadu beerka dhulka ku wada hayay. ilayska dawladnimo ka daarmay koonfur oo haatan tallaabadii la qaadaaba rajo curiye ay tahay ayaa wuxuu horseeday in meelo badan haldoorka Soomaaliyeed ay u holladaan ka qayb ka noqoshada mar kale iyo geedi ummadeed. Somaliland waqooyi dadku haatan waxay ku wada baraarugeen aragtida lagu dhaqaa inaanay ehel u ahayn aayaha bulshada. isla aragtida lagu dhaqo oo ah tangoonigoosadka ayaa iyaduna xilligan ku kooban hiyikac dawladnimo doona ayaa ka daaran waqooyi hugun baa baxaya dadweynuhu hoggaan u yahay, taasoo uu daaha ka qaaday dhaqdhaqaaqa midnimo doonka ee la magac baxay mar kale midnimo. waa tanta guuxa bulshada kor u qaaday qurxan hoos jirana dibadda keentay. ku dhawaaqidii dhaqdhaqaaqani wuxuu noqday arrin si weyn gudaha Somaliland raad ugu yeelatay, taasoo sababtu tahay hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa Baashe oo ka mid ahaa jabhaddii SNM oo eedaha dumintii dalkii dhisnaa barkooda leh kala goynta Soomaaliyana iyagu sumad u ah. sidoo kalena Maxamed Baashe oo isagu kaalin muuqata ka soo qaatay dhismaha xukuumadihii u kala dambeeyay Somaliland waa shakhsi aan dhawaaqan hore looga filay, sidoo kalena aan wax raadax ku lahayn ka baayac mushtaraynta siyaasadda iyo geediga hadba meel u guura. arrimahaasi ayaa ah kuwa sababay inay bulshada dhexdooda dood ka dhaliyaan, qaar kalena kudhac ay u keenaan, kuwo kalena ay ku bahirtaan. dhawaaqa kadib waxaa iyaduna shaki weyn ku abuurtay bulshada qaybta aaminsan in la kala go'o kolkii la waayay hogaamiyahan dhaqdhaqaaqa iyo kooxdiisa cid la dooda oo daliil u keenta waxa ay la go'ayaan. waxaa kooxda Baashe loo cidleeyay doodo warbaahintu qabatay. tan ayaa xiisa leh. waxaa doodaha ka dhuuntay Bari Faysal Bulxan oo ku caan ah aragtida goonigoosadka. sidoo kale waxaa doodaha isaguna ka muuqurtay qoraaboobe Yuusuf Ducaale oo Maxamed Baashe ay muddo dheer kaymihii SNM ku soo wada jireen. aqoon-yahan Baashe walow doodahaasi lagaga muuqurtay haddana wuxuu bedka keenay sababta aan Soomaal sinaba aanay ugu kala maqnaan karin. maxaa keenay waxay baahidu mar kale midnimo. horta waxaad ogaataa si rasmi ah inaanay mar raba u kala bixin Soomaaliya iyo Somaliland ama koonfur iyo waqooyi. kubka iyo bowdada laga wada jabay 30 sanadood kadib halka qolo waliba taalo iyo arrimaha halista ah ee waaweyn ee inaga baxsan ee siyaasadda gobolka Geeska Afrika imika ka dhacaysa cusub ee waayaheeda iyo siyaasadaheedaba leh. isbedelada maanta jira waxay abuurayaan fursado waaweyn. fursadaha waaweyn ee abuurayaan marka aad eegto gudaheena ama Somaliland ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaatee waxaa muuqata haddii lagu jiro sidanaynu nahay 30 sanadood u dambeeyay aynu ku soo jiray in 10 sanadood ee soo socda haddaan hadda tallaabo wax ku oola la qaadin in aynu yeelan doono sawir ka maanta ka foolxun oo dib la isugu canaanto oo mas'uuliyiintu dib isugu canaantaan oo dadka waxgaradkii dib isugu canaantaan oo abwaanadu dib isugu canaantaan oo xildhibaanadu dib isugu canaantaan oo culimada iyo ganacsayaashu ay dib isugu canaantaan. taariikh madow oo foolxun ayaa 10 sano soo socota iman karta haddii aan maanta tabaabulsho iyo qorshe la helin. isu imaatinku shaki kuma jiro labada dhinacba geed walba in gubtaa hoos taala. Somaliland ma dhibaato la'ayn mar walba dhibaato jirtay wala wax badan u qabsoomeen oo dadka shacabkii ay la yimaadeen inay hogaamiyayaashu inta badan shaqo ku lahayn. maanta waxa xaqiiqo ah oo waaqiciya in wixii 30 sano la yabyabayay 10 sano u dambeeyay ay noqdeen hal bacaad lagu dhisay. in doorashooyinkii lagu faani jiray ay qabsoomi waayeen, in axsaab siyaasadeed dhaqan geli waayeen, in doorashooyin qabsoomi waayeen. baarlamaanka Somaliland wuxuu kuraasta ku fadhiyaa 15 sanadood ku fadhiyaa iyo DD guurtida iyada hadalkeeda in axsaabta siyaasadda waynu ognahay 3 xisbiye wadanka ku jira iyo tayadooda. haddii loo noqdo dib u dhacyada dhaqaale iyo bulsheed, hadday noqoto biyaha, hadday noqoto caafimaadka,
hadday noqoto waxbarashada hadday xitaa noqoto amniga dadku marka ay Soomaaliland iyo nabadeeda laga hadlayo gobollo cayiman bay soo qadimaan cadaalad darrida ka jirta waddanka soo hana qaadaysa ee imika meel walba jebisay karkaarka Soomaaliland wixii ay soddon kordhi in badan soo dhisay dib bay u cuntaa way iscinantaa maalinba in baa fuqdo oo daadegtaa sharci meesha kama jiro ummaddu ay u siman tahay Soomaaliland waxay mararka qaarkood noqotaa qoyslaan afka ka dhowri mayno inna laga baqaa ilaahay bay ku yaallaan boobe yuusuf ducaale oo ka mid ah xagjirka xilligan laga tirada badan yahay dooda iyo qarnaqsiga baashe wuxuu kaga jawaabay TV-ga dooda qabtay waa cadowga hal la xidho hadalkeenu wuxuu daaran yahay TV-ga Universal oo aad moodo maalmahan inuu ceel batrool ka helay Hargeysa iyo Soomaaliland dadkana intuu guryahooda ku garaaco garashadooda ku caayaya oo ku aflagaadeynaya laba tusaalaan disaynaya bishii hore 22keedii Jimco ahayd Jimcaha hortii dhowrkii cishe ka horreeyay telefoon baa guriga la igu soo diray dabeedna waxa la igu dood Jimcaha ayaanu doonaynaa inaad nagala qayb gasho nin Cabdixaafid la yiraahdo ayaa ii soo diray oo u shaqeeyay telefishinka oo fulinayay siyaasadii telefishinka waxba hadalka uma badin waxaan ku yiri waan hargabsanahayo ma karayo sabti axad baa wuxuu igu yiri balida arbacada waxaan ku yiri ka soo hormarso salaasada aynu wada hadalno waxaanu xasuusinaynaa xukuumadda Soomaaliland xardajinta Soomaaliland garsoorka Soomaaliland iyo cid waloo dadkan iyo dalkan xil u haysaba inay ka damqato oo ay ka difaacdo weerarada joogtada ah ee lagu hayo ummadan ee gaar ahaan telefishinka Universal iyo inta la halmaasha ka imanaya qadiyada mar kale iyo midnimo kaliya ma jabsan difaacyada shakhsiyaadka ugu mayalka adka oo difaaci kari waayay waxa ay u go'ayaan ama ay aaminsan yihiin balse xukuumadda biixi lafteeda ayaa u maaradayda qadiyada iyaduna u taagla TV-ga ku hadla afka xukuumadda biixi oo weerarka baashe dhankiisa ka qayb galay waxa wariyaasha ka howlgala ay gaarsiiyeen in dadka aaminsan mar kale iyo midnimo ee reer Soomaaliland ay dhahaan Soomaalidu isku af maaha isku isirna maaha oo xataa isku diin maaha difaacyada jaban doodka cararka iyo taniba waxay mar kale u furaysaa in garabka tirada yar aanay jirin tirar adag oo aragtidoodu goonigosadku ay ku taagan tahay Soomaalinimo midnimo Soomaalinimada qowmiyadeedu may kala go'in meel walba ay joogtaba waa garta waxba mideeyo waxa mideynaya afkii diintii dhaqankii waxaasoo dhan baa ina mideynaya waliyo halkaa ku noqo Soomaalidu isku wada dhaqan maaha isku wada af maaha niyo isku wada diinna maaha dad badan baa inala soo hadlay caawa وكلا فكرة الدوانية شركة واحد سوق صوبية شبطي فكر إنه ليمي محمد باش قرض فكر بكنية فكر كنا ماشي مركا أرن كان وحويا وأرن إن قرن ماذا مدح بناني ذا Somaliland لدكوا فكر كاسنا إنه لقي سهر تشيستو ميديا أهان أنه لا دبام دقني لا دبارو كذا واقع أنا واجب كي يجتها هنا إنه نرانا فكر ما إيمانه قرن دبس بعد محمد الله اللي قرن كبير وظلنا حلك إنك إن صارني وحوي الدفاع ودن كينا دفاع ودك هاجم مر قريبة تكون دفاع عيسى مرنا عقل بتكون دفاع عيسى مرنا عفت تكون دفاع عيسى إنه هالك واحد نوفر لنا إنه أفكر دفاع عن الدين mucaaradka Soomaaliland oo arrintan ka hadlay ayaa iyaguna tilmaamay inaan la dayalsan karin sidoo kalena aanay difaac qadiyadaasi u noqon karinin in la isdhaleeceeyo oo kaliya kulmiye dadkii buugooda qorayay maxaan ku raahdaa in dadkii buugga kulmiye qoray maxaan ku raahdaa madaxweynahan wax ka dhisay ay maanta yiraahdaan amaba Soomaaliya madaxweyne ka doonaynaa amaba waxaanu doonaynaa midnimaan dib maxaan ku raahdaa ugu ololaynaa arrin inta ka gun weyn ba sharaxaysa marka inaynu ama kulmiye taa ku eedayno ama madaxweynaha ku eedayno ama ashqaastan laftooda ya aynu baraha bulshada ka caynaa maxana ma sameynayso محمد باشا تصالحها وأن قويها وأن كرتله وأن ودن كانوا صوت دجالمي أو SNM تيها وأن محن كورا هذا دولتي Somaliland نوردا محكدسي وأن دتك قرب شوك توقف فرعون Somaliland رقراقا
marka ma baraha bulshadeenu kacayna mise waxaynu isweydiinaa why muxuu maxamed sidan u sameeyey ugu dambayn sabab ayaa jirta arrimaha oo gani ay daaran yihiin dadku waa badaaleen nus ka mida cimrigoodii oo 30 sanno ahi inuu bannaan ku lumay waa tan lagu baraarugay inta loo meeldeeyay dareenkani sidaa waa baaqiga ka dhiman cimriga dhallinyarada oo isaguna ah gacan uu ku jirta daayarta aragtida mar kale midnimo taageertayna waxa ay ka ordayaan in 60 sannadood ee noloshooduba cidla ku wada lumaan taa weeye tan dareenkan iyadu daadahaynaysa